السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلامي دمانتين وما عقال وحرمين كسو تشيديو تلوين كسعودة فصلك فهم 1. مقالكا waxaa ugu talagalay inaan la wadaago ardayda sanadkan ka soo qalin jebisay fasalka 8aad dugsiga dhexe ee bilaabaysa dugsiga sare galaaska fasalka 9aad ama form 1. waxaan rabaa duu ilaahay inaan ugu soo gudbiyo 5 talo aan isleeyahay insha Allah taala aad ay wax u tari doonaan oo qofkii 5tan qodob dhaqan geliya isleeyahay noloshiisa insha Allah taala wax weyn ayaa iska bedeli doona. qodobka koowaad wuxuu noqonayaa aan rabaa in ardayda duu ilaahay form 1 ka ah aan fasalka 9aad dhigata aan tal ahaan u siiyo in ay bartaan luqadda Ingiriiska. waxaan ognahay dugsiga hoose dhexe inuu ku baxo maadada Soomaaliga oo maadooyinka inta ugu badan ay ku baxaan luqadda Soomaaliga markii dugsiga sare la yimaadana ay ku baxaan luqadda Ingiriiska. marka sidaas daraadeed si ardaygu uu soo wareer badan u gelin marka uu fasalka form 1 ama 9aad uu bilaabayo waa inuu iska dhisaa luqadda Ingiriiska oo waliba si fiican inta tabartiisa uu ku didaala luqadda inuu barto. sadii kale ma iskeenayso macnaha fasalkii uu ka yimid ee 8aadka ah ee dugsiga dhexe ee Soomaaliga ay ku baxayeen maadooyinka iyo fasalkan dugsiga sare oo hadda uu bilaabay meesha dhibaatada ka imaanaysana waxa waaye maadooyinka waxay ku bixi doonaan duu ilaahay ma luqadda Ingiriiska. marka ardaygu waa inuu iska dhisaa kulli intii tabar macquul ah oo ka fahmi karo luqadda Ingiriiska oo inuu ku didaala inuu barto. qodobka labaad duu ilaahay aan kula talinayo ardayda fasalka 9aad waxa uu noqonayaa qorshe waxbarashada 4 sano ee soo socota. qorshe waxbarashada 4 sano ee soo socota waxaan ognahay in dugsiga sare uu yahay 4 fasal oo mid kasta xasan la dhiganayo. marka badanaa inteena badan ardayda waxay ku dhaaftaa 4 sano qorshe la'aan iyo ayagoo aan ka fakirin 4 sano qofka ay noqonayaan ardayga soo bixi doona duu ilaahay markuu dugsiga sare dhameeyo. fadlan waxaan kula talinayaa inaad waalidkaaga la fariisatid ama dad talooyinka waxbarashada ku dhir la fariisatid inaad 4 sano qorsheysid waxyaabaha aas-aasiga u baahan tahay inaad baratid si qofka wada dhahnaa luqadda Ingiriiska. qofka waxa laga yaabaa inuu computer u baahan yahay inuu barto, inuu caafimaadka u baahan yahay, inuu maxaa la yiraahdaa isha courses yar oo kala duwan oo inuu u baahan yahay inuu qaato inta uu dhiganayo dugsiga sare 4 sano dugsiga sare dhiganayo. marka waxaan ku leeyahay inta fariisatid oo qalin iyo warqad qaadatid qorshe waxbarashada. qodobka saddexaad ee duu ilaahay ma raba inaan fasalka 9aad ardayda dhigata aan tal ahaan u siiyo waxa uu noqonayaa iska jooji ama gabi ahaanba ka takhalus ama iska yaree caadooyinka xumaa ee aad lahayd inta aad dugsiga dhexe dhiganaysay. hadda dugsiga dhexe waa dhamaysay dugsiga sare ayaa usoo gudubtay waxaa laga yaabaa in caadooyin ay jireen oo da'daada iyo waxyaabo badan fikirkaaga uu hooseeyay. marka haddii aad dugsiga sare usoo gudubtay waa inaad gabi ahaanba ka takhalustaa caadooyinka xumaa aad lahayd ama aad yaraysaa. oo haddii aadan wax akhrin jirin oo caado xun ay ku ahayd waa inaad iska yaraysaa, waa inaad iska joojisaa. haddii maxaa casharada aad dhageysan jirin casharada aad la socon jirin oo caadadaas waa inaad iska joojisaa. marka caadooyinka xumaa adiga kulli ayaa shakhsiyan aad is yaqaana waxyaabihii caadooyinka ahaa qofku inuu isbedelaan muhiima macnaha qofku inuu caadada iska bedelaan muhiim ah. marka caadooyinkaagii hore adigoo nafsadaada ogtaada oo isqarinaynin warqad qalin qaado caadooyinkaagii hore tix ee xumaa waaye kuwa wanaagsan ku bedel haddii ilaahay. qodobka afraad haddii ilaahay wuxuu noqonayaa oo ardayda 9aadka galaysa aan kula talinayo in badan wax akhri. waxaa haddii ilaahay hortaada ah 4 sano oo dugsi sare aad dhiganaysid haddii aad wax akhris joogtaysid. marka aan ku leeyahay wax akhri muhiimadda maahan kaliya inaad casharada iskuulka akhrisid, inaad casharada iskuulka kaliya aad daba taagan tahay. wax akhriskaaga ha ballaarto, kitaabo badan akhriso, buugaag badan akhriso, casharada iskuulka si fiican u baro. qof wax akhriskiisu joogto yahay oo wax akhriskiisu nidaamsan yahay haddii ilaahay oo wax akhris leh caado wax akhris leh noqo. qodobka shanaad u dambeeya haddii ilaahay muxuu noqonayaa joogtay horumarkaaga. fadlan hadda inta aan kasoo sheekaynay dhammaan 4 qodob ka soo hadlay horumar waaye. qofku inuu waxbarashadiisa qorsheeyo, luqadii barto, caadooyinka iska joojiyo, caado wax akhris yeesho, dhammaan waa horumar. laakiin waxa la rabaa horumarkaas in la joogteeyo. tusaale markii muuqaalkan soo gaaro haddaad maxaa la yiraahdaa 5 bilood oo horeysa aad diyaashid ama 2 bilood oo horeysa aad diyaashid kabacdi aad iska caajistid waa dhammaantood eber noqon waa dhimanaya. marka si aysan u dhimanin waxyaabihii aad beeratay waa inaad ku dadaashaa inaad joogtaysid horumarkaaga. sanadkan maxaan bartay sanadku xiga maxaan bartay
sanadku sii dambe maxaan bartay maanta aa form 4 maraysid waa inaad tahay arday aan ka walwalin imtixaan dowladeed mustaqbalkiisoo dhan iyo maxaa la yiraahdaa horumarkiisoo dhan gacanta ugu jiro diyaarsan ka weyn inuu ka walwalo maxaa la yiraahdaa imtixaan iyo waxyaabahaas laakiin marka insha Allah taala waxaan kula talinayaa inaad shantaas talo iyo wixii aad ku darsan kartid inaad dhaqan gelisid horumar fiican baa ku rajeynayaa haddii Ilaahay idmo dugsi sare ayaa bilowday waxaan ku rajeynayaa insha Allah taala inaad guul uga bixi doontid adoo faraxsan horumar leh arday la maxaa la yiraahdaa ii sheeg qiimo sare leh insha Allah taala inaad ka bixi doontid ku soo dhawaada YouTube macayal mahadsanidin inaad muuqaaladeena si bilaash ku daawatid waa mid aan ugu talagalnay oo waqti badan gelinay laakiin inaad hal subscribe nagu caawiso waa mid qaadanaysa wax ka yar hal second